السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كوبعي سوفتوير على بarateen koorsooyin kala duwan. Koorskeeni QuickBook 2016 ayaa noo socda qaybtii labaad ee serviceska. waxaanu maranaa casharkeenii saddexaad ee ku saabsanaa services system. casharkan wuxuu ka hadlayaa sales on credit ee service ah. waxaan ku iibinayaa deyn baan service ku bixinayaa. kasoo qaad mobile baan inuu hagaajiyay deyn baan ugu hagaajiyay haddana wii keenayaa qaabkan u diiwaangelin lahaa baan kaga hadlayaa dhinaca practicalka kala socda. markaan programka soo furno marka aad deyn services ka aad ku bixinaysid waxaad tagaysaa customer create invoice baad tagaysaa ana weynaysto halka waxaad ka dooranaysaa customer-ka aad u qabanaysid Hussein Saciid Warsame tan ku dhifo halka waxaad ku dhifanaysaa waxaad ku qoraysaa halka adeega aad u qabanaysaa halka xidigta soo yara furo adeega aan qabanayo mobile baan u hagaajinayaa oo mobile troubleshooting tan halka kooskaan ka qaadayo kasoo qaad $5 baan ka qaadayaa mobilkii baan ku hagaajiyay $5 baan ka qaadanayaa saasaan u diiwaangeliyay save and close baan dhahayaa hadeer deyntii saasaan ugu diiwaangeliyay haddaan rabo inaan deyntii eego wax tagayaa report customer and receivables customer balance summary baan ku dhifanayaa tan waxaan ku leeyahay Hussein Saciid baan ku leeyahay $5 oo ah adeeg aan u qabtay. marka casharkeena intaas ku gabagabeeyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.